وهجاج ولي برامج كاني هكايان كون كودا جيرنا ragga ku dhaqan magaalada Wajeer ayaa ka cabanaya shirqoolo ay sheegeen in dumarka magaaladaasi ay u dhigeen boqolaal raga kuwaas oo lagu siray bikranimo been abuura sheeka arrimahaas la xiriirta waxa magaalada Wajeer inooga soo diray Xuseen Nuur Ciidmooge waa xilli galab ah ayaantu waa axad goobtu waa magaalada Wajeer waxa ishayo guuxa iyo masaafaha dheer ee baabuurta waa mid ka mid ah gabaarida lagu galbinayo oori ay iscalmadeen saygeeda oo waqti badan ku taamayeen in ay maalin wada aqal galaan balse sheekada lamaanaha iscalmaday waxa ku hoos jirto sheeko kale oo salka ku hayso qiyaano iyo dhagar loo maleego ragga aruuska ah ee qarashaadka badan ku bixiyo baaritaano badan kadib waxaa noo suura gashay in aan helno mid ka mid ah gabdhaha ayada qiratay in ay shirqool u maleegtay saygeeda oo hadda ay u hayso 3 canug gabadhani ayaa naga ogolaatay in ay nala wadaagto sheekadeeda si ay noola qaybsato qaababka loo fuliyo dhagarta inta badan loo maleego ragga aruuska kuwaas oo islahaayeen waxa jihada saarteen nolol farxad iyo reen ay ku dheehan tahay waxaan si ku meel gaar ah u qarin doonaa masawirka dhabta ee gabadhani si aysan dhibaato ugu dhicin ayada iyo saygeeda waxaan inta uu barnaamijka socdo ugu yeeri doonaa Xaliimo oo aan ahayn magaceeda dhabta ah Xaliimo waxa ay inoo sheegtay in rag badan oo Soomaaliyeed uu ka mid yahay saygeeda loogu been guuray bikranimo aan jirin ayada oo loo isticmaalayo kimikaal casri ah oo lagu yareynayo xubinka taranka ee dumarka Xaliimo ayaa ayada noo sheegtay in bikranimadeedii ay ku weyday wiil uu xiriir kala dhaxeyn jiray inta aan la guursanin ka hor laakiin ay go'aansatay inay isticmaasho daawadani si ay u qanciso saygeeda oo aaminsanaa in xaaskiisa uu guursani doono ay tahay bikro si uusan shaki u soo dhaxgalin guurkooda 7 sano gudahooda ka shaqeynaayo 6 sano ilaa iyo 7 sano waa waqti aad iyo aad u dheer marka magaalada Wajeer waxa jirto oo wali aan soo shacbixin in maaragtay dumarka waqtiga la digaalinayo saloonka la geynayo qalab loo isticmaalo ay jirto oo xubinka taranka lagu yareeyo si gabadha ayada habeenkii la soo galbinayo ugu muuqato inay tahay qof aan waligeed la isticmaalin marka arinta ayada maxad ka dhiilahay beenaynaysa misana anoo waa taas way jirtaa run waaye muddo 2 sano ay socotay sanooyin sano u socdeen sanooyin sidan ay u socdeen waana run taas way jirtaa marka arinka dumarka oo kaliya ka warahayaan raggi kama warahayaan anu kale og waayo rag waxay ogaadaan ma jirin anu kale gudahayn ku sameeyno marka qofka markii uu wax qalabkaas uu isticmaalo miyuu u muuqanayaa inuu maaragtay yahay qof oo sidiisii hore ku soo laabtay oo kaloto habeenku ugu horeysnin waa u maleynay gabadho sidii hore leeyahaana u laan marka habeenka ugu hore wuxuu u maleyn karaa in maaragtay wixii dhan ay sidooda iska yihiin gabar cusub camal waa gartay gabdho baqaya jirto oo ninka balanka qaadantay ninka loo tagaynin waana dhacday waayo sidaan gabdhoonahanaba inta meel ilaa lagu haysto marna sidaas darteed ayaan u sameeynaynaa arintaas lama dhihi karaa gabadha qiyaanada ay wado inay meeshaas ku joogsan karto oo mar horeba rag kale ayaa ninka ayaga gabadhii u guursaday la soo isticmaalay ma liis dhihi karaa gabadha markii la guursado ka dambe waxyaabihii hore oo ay u soo martay inay ka garwaaqsato oo ninkeeda kaliya ay ku ekaato taas way jirtaa waayo hadda balse oo nin heshid oo ninka guur la gashid dareenka loo nin aadid maba qabaysid ku qarkooda iska sameeyana jirtaa hadii ka waran gabadha ay ileen waa qof horaan wax u soo arkay ninka hadda ay haysato oo xalaash u qabo ay ku qanci weydo marka loo eego kii u bilaabo ku laabato waxyaabihii hore ay u soo martay marka loo eego taas ma ka saa qaar ka mid ah shacabka ayaa sheegeen arrinkani ku soo korodhay magaalada Wajeer inay ku tilmaamayaan fasahaad walow ay sheegeen in xilliyadii hore ay jiri jireen qaabab kale oo dabiici ah oo lagu yareeyni jiray xubinka taranka iyadoo la isticmaaleynin wax daawo ah amba chemical bintu waxa way maamoodinka maama sacnaysa jirta naagaha kama buulo joogada camal maama sacnaysa jirta gabdhaha oo maamoodinkan waayeelkan noqono dhaxda gabdhaha sacnaysa gabdhaha qashanka iyo qurunka iyo ka soo daaysa la
laakiin maamada idaha waxyaalo kalena waa hagaajisaa way soo islaantaad hadda markay isla sigtiin meesha la isoo hagaajin oo la isoo dhaqay ku leedahay adigu israacdeen gudaha ay la gashay saan hoose iski walaxa lagu soo hagaajiyo waa la soo qabday waa soo noqday waa la isoo hagaajiyo waa qurunkan waa iga soo daasay lagu dhahay ninka ragga qurunka laga soo hagaajiyo leemoy waa soo qabday ma dhahayn taas horeen u aragnay يعني لما ملا يعني السكيدج oo baalka dad weynay waa la yareeyna markaan islaanta waxay noqon bixir amal laakiin tan daawada la sheegay aniga waa ikow tan hadaadan imaado waa fasaad kale maxay waxaan hadda bacrimin baa hadda wax la sheegay bacrimin bini'aadamka ma ku fiicnaa bacrimin qofka bini'aadamka sidii ilaahay ugu talagalay waa inuu ahaada hadduu sidii wax asaga lafadiisu isbadbadala oo saad rabta aad waysa hadii lafadaada waxa waay wax kala ku gala marka sidii runta qofka bini'aadamka qaabka ilaahay ugu talagalay wax ka bedeli kara ma laha waxyaalaha hadda bacriminta oo hadda soo galay wajeer waa wuxuu rag isku dili lahaa sidii runta nafta iska goyn lahaaba arrimahaas laga waantooba dib damana loogu noqon ninkii lagu arkana arrintaas tilaabaha ka qaado dawladda kuku ayaa waxa uu isaga noo sheegay in arrimahani aan horaan loo aqaani jirin balse haatani ay ku soo bateen magaalada waxa uuna sabab ugu dhigay in guurka qarashaadkiisa uu cirka isku shararay ayadoo la sheegay dhalinyaro badan oo guurdoon ah maanta in ay doorbidayaan inay gogol dhaaf sameeyaan si aysan faraha ula galin guurka qaaliyoobay oo sibiqda noqday saan haday noqoto magaalada dadku waa ragii oo yaraaday naagii oo lagu dhisana 1 milyan bar 1 milyan oo guurka hadan la sii qaalay awada naagta markii la dhisay 100 gaaraysa dabadhiga kuna ma qaba haye 120 kun sirri joogtay 150 kun la keen 150 sirri gadaa lagu dhahay 150 sirri inta iska gadi 100 kun aroos ku dhistay laade masaakiinada iska tahay 100 aroos ku dhistay aan saan u soo wareegayaan soo helay 50 ko ama 40 ko ama 70 ko ama soo helay dadkina waxa gabadhii la soo xal ninka sirtaadna gabdhe aan waxaan baray sirtaan 8 kun ama 6 kun inaan gado naagta horta meesha ka u dumi idana taasna waa jirtaa wajar Sheekh Cabdiwahaab Cusmaan oo kamid ah culimada diinka magaalada Wajeer ayaa qabo in arrinkani ku soo badatay ismaamulka Wajeer ay sabab u tahay guurka oo qiimihiisa cirka isku shararay isaga oo bulshada ugu baaqay inay fududeeyaan guurka si loogu gudbo arrimaha noocan oo kaloota ah wuxuu noqday shay qaali ah oo aan loo dhawaan karin ayuu noqday marka guurkii markii la waayay waxa imaaday marka zinadii iyo gaabsigii iyo gogol dhaafkii hadda aad sheegaysay yaa dilaacay kuwii markay dilaacayna si hadhow marka recovery loo sameeyo yaa marka bikra fake ah oo marka jelly iyo lagu sameeyay yaa la hagaajinaya waxa soo dhan runtii waxa keenaya guurkaas qaaliga ah ayaa runtii u sabab ah gabdhuhu diinta way akhristaan madrasooyinkay ku jiraan iskuulay tagaan diinta Ilaahay mar walba way dhageystaan